نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي قصوينك نبيذا. qisadeenna waxay maanta ku saabsan tahay qisadii saca reer bani Israa'iil. sida ay soo warinayaan taariikhahanada waxay sheegaan waxaa jira nin taajir ahaa oo ka mid ahaa reer bani Israa'iil. wuxuu ninkaasi ahaa qof duq ah ama da' ahaa. wiilasha uu adeerku ahaa ayaa jeclaystay inuu odayga dhinto si ay u dhaxlaan una qaataan hantidiisa ama maalkiisa. habeenada ka mid ahayd ayuu mid ka mid ahaa wiilashii adeerku ahaa wuxuu u dhacay odaygii oo dilay, kadibna uu meydkiisa ku tuuray waddada bartankeeda, ama sida warin kale ay sheegayso inuu meydkiisa ku tuuray albaab nin kale uu leeyahay. markii uu waaga baryay ay wiilashii waxay bilaabeen inay isweydiiyaan cidda dishay adeerkood. wiil ka mid ahaa wiilashii odayga adeerku ahaa ayaa goobta yimid isagoo aad u ooynaya, waxayna ka doodeen cidda adeerkood dishay. saadadkii meesha jooga ayaa ku yidhi, maxaad u doodaysaan? waxaa jooga nebigii alle muuse calayhi salaam. markaasuu wiilkii aadku u booynayay u tegay nebi muuse calayhi salaam una sheegay in adeerkiisa la dilay. nebi muuse calayhi salaam wuxuu wiilashii oo dhan ku yidhi, waxaan idinku weydiinayaa magaca alle qofkiina wax ka ogaa dhacdadan oo lagu dilay ninkan odayga ahaa inuu ii sheego. laakiin dhammaantood wiilashii oo dhan waa ay aamuseen oo cidna ma hadlin. saa markii ay aamuseen ayay dadkii goobta isugu soo baxay waxay nebi muuse ka codsadeen inuu alla weyne u weydiiyo cidda dishay ninkan odayga ahaa. nebi muuse calayhi salaam intaasi kadib wuxuu alla weyne weydiiyey arrinkii meeshii la isku haystay. alla weynena wuxuu nebi muuse ku amray inay wiilasha gowracaan sac. muuse calayhi salaam wuxuu wiilashii ku yidhi, wuxuu alla weyne idin amrayaa inaad gowracdaan sac. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزؤا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. xusna markii uu muuse ku yidhi qoomkiisa, xaqiiqdii alle wuxuu idin amrayaa inaad gowracdaan sac. waxayse ku yidhaahdeen, ma waxaad inaga dhigatay muusow ciyaar iyo dheel? wuxuu muuse ku yidhi iyagii jawaab ahaan, waxaan ka magangelayaa alle inaan ka mid noqdo jaahiliinta ama maangaabyada. markii uu nebi muuse u sheegay amarkii alle uu ku siiyey ee ahaa inay gowracaan sac, waxay u qaateen in nebi muuse uu ku cayaarayo iyaga. wuxuuse nebi muuse u sheegay inuu alla weyne ka magangelayo inuu alla weyne u nisbeeyo wax ciyaar ah. wiilashii waxay bilaabeen su'aalo iyo waxaan loo joogin. haddiise ay hadalkii alle si toosa u qaadan lahaayeen oo ay gowrici lahaayeen sacuun, waa laga aqbali lahaa. laakiin waxay bilaabeen inay weydiiyaan nuuca uu saca yahay iyo tilmaamihiisa. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. waxay yidhaahdeen, noo bari rabbigaa si uu inoogu caddeeyo waxay tahay sacaasi. dadkii waxay nebi muuse weydiisteen inuu rabbi u caddeeyo waxay tahay sacaasi. wuxuu nebi muuse ku yidhi iyagii, wuxuu alla weyne leeyahay, waa sac aan duq ahayn ugubna aan ahayn, oo waxay u dhexaysaa labadaas xaaladood ee fala waxay laydin amray. maxaa ku taqiinay reer bani Israa'iil madax adeeg dhagax ka daran? wixii alla weyne amray haddii ay fulin lahaayeen maxaa ka bii lahaa? markii uu alla weyne u sheegay in saca la doonayo uusan ahayn mid duq ah iyo mid ugub ah oo la doonayo mid dhexdhexaad ah, haddana waxay keeneen su'aal kale iyaga oo weydiinaya nebi muuse calayhi salaam midabka saca uu alla weyne uu doonayo. qaala innahu yaquulu innaha baqaratun صفراء فاقع لونها
تسر الناظرين. muuse wuxuu ku yidhi wuxuu alla weyna leeyahay waa sac huruud ah oo midabkiisu uu yahay takhti oo ay u bogayaan ama ay jeclaysanayaan wixii arka ama qofkii arkaa. xujo mar walibaa su'aal ayay keenayeen oo markaana waxay weydiiyeen nebi muuse calayhi salaam inuu alla weyne u sheego midabka saca la doonayo inay gowracaan, laakiin waa ay ka sii dareen su'aalaha oo marba marka ka dambaysa su'aalo adag ayay keenayeen. waxay markii dambe dhaheen muusow rabbigaa inoo bari waa maxay saca la doonayo inaan gowracno, maxaa yeelay lo'dii baa isaga kaya ekaatay, hubantina haddii uu alla idmo waxaan ahaan doonaa kuwa hanuunsan. saa nebi muuse markii uu rabbi u weydiiyey marar badan ayuu haddana alla weyne u weydiiyey su'aashoodii ugu dambaysay ee ahayd inuu alla weyne u kala caddeeyo nuuca saca laga doonayo. wuxuu alla weyne ugu jawaabay qaala innahu yaquulu innahaa baqaratun laa daluulun tusiiru al-arda walaa tasqi al-arda musallamatun laa shiyata fiihaa. wuxuu muuse yidhi wuxuu alla weyne leeyahay waa sacaanan u tababarnayn inay fasho dhulka iyo inay waraabiso beeraha oo aad u fayow oo aanan lahayn wax midib kale ah oo booro takhti ma ahee. markii intaasi raggii loo sheegay ayay waxay ku yidhaahdeen muuse calayhi salaam haatan baad la timid xaqii. markaas ayay gowraceen sacii inkastoo ay ku sigteen inaysan falin wixii loo diray. qaaluu al'aana ji'ta bilhaqq fadabaxuuhaa wamaa kaanuu yafcaluun. saa markii ay in muddo ah goobayeen sacii loo diray ayay aakhirkii tilmaamihii sacii loo diray soo heleen. wuxuu alla weyne nebi muuse u sheegay inay gowracaan sacaasi oo cad ka mid ah hilibkiisa ay ku dhuftaan qofka meydka ah. faqulna idribuuhu bibacdihaa kadhalika yuhyi llaahu al-mawtaa wa yuriikum aayaatihi la'allakum ta'qiluun. oo waxaan ku nidhi ku dhufta ninka meydtan qayb ka mid ah saca oo sidaasi buu alle u soo celiyaa meydka nolosha oo idiin tusiya aayadihiisa iyo calaamooyinkiisa si aad u fahantaan. nebi muuse calayhi salaam wuxuu dadka meesha jooga u sheegay inay gowracaan sacii kadibna cad ka mid ah saca ay ku dhuftaan ninka meydka ah. saa markii ay sidaasi yeeleen oo meydkii ay ku dhufteen ayuu ninkii meydka ahaa soo noolaaday. nebi muuse calayhi salaam ayaa ninkii weyddiiyey yaa ku dilay. wuxuu ninkii ku yidhi wiilka aan adeerka u ahay. saa markii uu intaasi yidhi haddana ninkii waa uu dhacay isaga oo meyd ah, waana halka uu alla weyne ka leeyahay oo sidaasi buu alle u soo celiyaa meydka nolosha oo idiin tusaa aayadihiisa calaamooyinkiisa si aad u fahantaan. kadhalika yuhyi llaahu al-mawtaa wa yuriikum aayaatihi la'allakum ta'qiluun. ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد. ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي qisooyinka nebiyada